بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد كسو دوادا برنامج كيني تربية أرضيغا يقيبتي سي شنات تربية أرضيغا قيب شنات وحانكو قادنينا أرضيغا إيو ديغان كيسا حكمة أربيت أيا جرتو أو دهسو التعاون كلمة مكونة من 3 أحرف نحن iskaashiga waa eray ka kooban 3 xaraf oo ah nuun iyo xa iyo nuun nahnu anaga micnaheedu maxay tahay marka la rabo in la iskaashado waa in dad badan la helaa ardayga deegaankiisa waxbarashada door noocee ay ka qaadataa door waxay ka qaadataa aad iyo aad u weyn waliba waxa la isdhihi karaa waa doorka ugu weyn ardayga waxbarashadiisa ku saabsan maxaa yeelay deegaanka ama bee'ada uu degan yahay ardayga hadduu yahay bee'ad wasakhaysan oo degan ciyaal wax aan baranaynin oo degan ciyaal haweenkii iska soo dhafraayo oo subaxdii iskuulka albaabada laga soo xiranayo haddii degan yihiin ardaygaas wuu saameynaya maxaa yeelay qof walba wuxuu la diin yahay saaxiibkiisa deegaanka waxyaabaha ardayga uu ku saameynayo waxaa ka mid ah ardayga markuu arko dadka deegaankiisa oo dadaalayaan waxbarashada ku dadaalayo oo wax walba sameynaya imtixaanaadka kaalmaha koowaad ka galayo asagana wuxuu ku dadaalayaa in ardaydaasi isku deegaanka ay yihiin inuu ku daydo deegaanka waxyaabo fara badan ayuu saameyn u leeyahay xitaa qofka inuu tooso marka la rabo salaam qof oo baadi ku jiray oo faasiq iska ahaa oo dambiile ahaa marka la rabo inuu tooba keeno culimada xitaa waxay ku daraan qofkaas bee'ada uu ku nool yahay ha laga wareejiyo bee'ad kale ha tago xadiiskii oo nabi sallallahu alayhi wasallam laga warinayay bukhari muslim ku yaalay ninkii 99 qofood dilay oo u imaaday nin sheekh ah weydiiyay yiri sheekho ani toobad ma leeyahay sheekhi wuxuu yiri wax toobad aa leedahay male 99 dii aa soo dishay 100 ayuu uga dhigay wuu soo baxay sheekh kale u imaaday wuxuu yiri 99 qofoodan soo dilay sheekhi ugu dambeeyna jawaab xun u siiyay xisaabtan ku xiray ee tooba ma leeyahay xikmadda aan ka wataa waxay tahay sheekhan kale wuxuu yiri toobad waa leedahay balse deegaankan aad degan tahay ka guur magaalo kale aad maxaa dhacay ninkaas toobadiisa way anfaceedii meel kale uu tago laakiin haddii magaaladan uu sii joogo waxaa la leeyahay waa ninkii 99 qofood dilay ninkii sheekh ah 100 uga dhigay ninkaas waxaa laga yaabaa 100 ka badan inuu dilo maxaa deegaankii uu dambiga uu ku galay ayuu weli joogaa laakiin hadduu dhaqaaqo ninkii wuu soo dhaqaaqay deegaankiisii wuu soo bedeshay go'aan ayuu qaatay magaaladii uu u soo baxay markuu soo gaari rabay nafta ka baxday wuu dhintay malaa'igtii jannada iyo kuwa naarta ku murmeen ninkan xagee la geenayaa kuwa naarta waxay dhaheen ninkan waa ahlu naar dad badan buu dilay kuwa jannadana waxay dhaheen ninkan wuu tooba keenay malad kale baa la soo diray waxaa lagu kala go'aamiyey in la dhaho ninkan meeshuu ka soo baxay iyo meesha u socday hala kala qiimeeyo waa la qiimeeyey waxaa soo baxday meesha u socday inay soo dhawaatay haddaba deegaanka wax badan ayay u tareysaa qofka ardayga ah inuu wax barto inuu horumar gaaro maba ugu sii jirta markii imtixaanaadka finalka ay soo dhawaadaan ardayga waa inuu helaa deegaan oo wax u taraayo deegaan u kaalmeenayo waxbarashada deegaan garbaha isqabanayo maxaa yeelay xikmadda aan ku bilaabanaya waxay ahayd iskaashigu waa kelimad ka kooban 3 iskaashigu marka micnaheedu maxay tahay yadullaahi maca aljamaaca gacanta ilaahay iyo maganta ilaahay waxay la jirtaa dadka markay isbahaystaan wax way baranayaan horumarna way gaarayaan balanteenu waa midnimo iyo iskaashi iyo waxbarasho midaysan wa sallallahu ala nabiyina muhammad